بسم الله الرحمن الرحيم كسر دوادا شبكة sologroups.com laga barto cilmiga ICT iyo English oo ku baxlo qadafka Soomaaliga magacaygu Cabdina Ismaaciil mar walba waxaad nagala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com security Jebinta Computerka Facebook iyo sida looga hortago inta badan ayamahan waxaan maqalnaa waxa laga jabsaday Facebook inta badan iyo waxyaabaha kale ee social media runtiina waa arrimo yaab leh oo soo batay oo dadka xilliga laga jabsado waxa lagu sameeyaa in lagu biiqsado blackmail lagu sameeyo in laga eego message-kii ama fariimihii ay direen in lacag lagu weydiiyo in lagu dhibaateeyo in sawir furxun laga keeno marka isweydiinta weyn waxay tahay qaabkee looga jabsadaa iyo sidee looga hortagaa runtii inta badan Facebook qaabka loo jabsado wuxuu ka imaanayaa computerka ama laptopka ama telefoonka gacanta ama cellularka qofka soo yaqaano oo la soo jabsado siday ahaataba marka jabsigana wuxuu noqonayaa mid professional ah oo hackersku ay sameeyaan iyo mid aan u baahnayn qofka xitaa computer inuu yaqaano uu jabin karo wuxuu garan karaa in uu soo download gareeyo software trojan trojanka wuxuu noqonayaa kanoo kale hack spy trojan exploiter kanoo kale ah oo aad u fudud basic qof aan computer aqoon xataa haddii uu kuu soo diro uu kaa jabsan karo marka qaabka looga hortagayo marar badan ayaan sheegay waxay tahay linkiyada lagu soo diro adan aqoonin iyo waxyaabaha lagu download gareeyo computerka marnaba lama download gareeyo exe-go kale waxaad u extensionkiisa .exe hadduu yahay mar walba waa la iska ilaaliyaa kaas ayaa kaa jabsada marka ma ahan qofka inuu yaqaano qaab Facebooka loo jabiyo Facebooka securitygiisu way adag tahay marar badan ayaan ka hadalnay laakiin jabsiga kaliya ma ahan in laga jabsado Facebooka waxaa laga hadayaa bangiyada sawirada ku jira dad ayaa waxay leeyihiin sawiro computeradii igu jiray ama laptopkii ayaa laga haday qaabka loo xadana adiga ayaa wadada isku furaya marka computerkaaga ama laptopkaaga mar walba waxa muhiim ah in ay ku jiraan antiviruska ugu dambeeya oo update waxba tiri maayo hadduu ku jiro antiviruska laakiin waa inuu ahaadaa update inuu ahaadaa waxyaabaha soo baxay tusaale ahaan softwarekan khafiifka ah oo aan tijaabada ku samayn doono xilligan antivirus arki kara ma jirto ba yaraatee waxaad ka download gareyn kartaan haddii aad member ka tahay shabakada sologroups.com casharka iminka aad daawanaysaan hoostiisa haddii aad member aad tihiin marka waxa hata uu ka dulboodayaa dhanka iyo antiviruska ayuu ka dulboodaya marka waxaa loo baahan yahay in update laga dhigo asbuuc walba waxa soo baxa mid cusub ayaa soo baxa update ayaa laga dhigaa waxaa kaloo la keenaa anti spyware anti hack waxyaabo badan oo kala duwan ayaa jira marka waxaan ku eegaynaa qaabka ay sida fudud u jabiyaan isla markaana qaabka looga hortagi karo inagoo tijaabo ku sameynaa softwarekan hack spy trojan exploiter waa software aad khafiif u ah qaabka loo isticmaalno qof aan computer aqoon xitaa uu isticmaali karo sidaad ku aragtaan waxaanu joognaa desktopka computerka caadiga desktopyada inta badan dadku waxay ku keydiyaan waxyaabaha documentiga waxay ku keydiyaan sawirada macluumaadka aadka u faraha badan marka anigu inta badan kuma keediyo laakiin casharka ayaan halkan soo dhigay waxa yaala foldero tijaabinka ku sameeyna bank details hack sawir kale iyo qoraalo waxay ahaadaan marka waxaanu eegaynaa qaabka fudud ee Facebooka iyo computerka dadka looga jabsado oo wixii macluumaad ah si toos ah looga qaadan karo oo wixii la doon lagu sameyn karo isla markaana waxaanu ka hadlaynaa sida looga hortago softwarekan saan ku sheegay haddii aad member ka tahay shabakada sologroups.com wuxuu hoos yaalaa videoga iminka aad daawanaysaan saan ku sheegayna antivirus anti spyware midna arki maayo uu ka dulboodaya isaga ayaan furayaa halkan ayuu yaalaa qaabkaas ayuu ku imaada extract ayaan leeyahay waxaan dhigayaa desktop ayaan dhigayaa okay ayaan leeyahay waa ilaa iyo 77 megabyte marka wax sidaa u sii weyn ma ahan markuu soo baxo qaabka loo isticmaalana waad arki doontaan aad ayuu fudud yahay halkan ayuu soo dhigmaya halkan uu imaanayaa isaga ayaan furayaa laba jeer ayaan furayaa markuu sidan u soo baxo halkan ayuu yaalaa inta badan antivirusyada ku jira computerka automatically ayuu qabtaan laakiin kan exe-ga ma qabanayo waana assemble script ah oo Python lagu sameeyay .exe marka idin leeyahay exe waa file la isu soo diro marka fileka noocan oo kala ah marka aan saan u furo waxaan leeyahay open ayaan leeyahay waxa ii soo baxaya website ku aadaya website-ka lama baahna kan aan ku soo laabanayna dhankan saan ayuu ku soo baxaya markuu sidan ku soo baxo waxa ku taal halkan build trojanka waxa la yiraahdaa waa faras ama trojan horse gadaal ka soo gasha albaabka dambe ee computerada aan logeyn ka soo gasha marka ugu horreyn waxaan leeyahay build ayaan leeyahay uu dhisayaa markii uu dhiso wax yar kadib wuxuu leeyahay your virus generated successfully in build virus folder please rename magac baa ka bedeshaa sababtoo ah qofka aad doonaysid inaad u dirtid
xilliga ay samaynayaan magaca way bedelaan laakiin inagu tabcan uma baahnin kan wixii aad doontid ayaa ka dhigi karta haddii aan idhaahdo kan right click waxaan dhihi karaa rename ayaan dhihi karaa waxaan dhihi karaa love oo kale ayaan dhihi karaa marka inta badan waxay sameeyaan kan markuu sidan yahay waxay ku hoos qariyaan failasha heesaha mp3ga videoska wax alla wixii application ah oo exe ah ayaa inta lagu dhex qariyo laguu soo diraya waa laguu soo diraya waxaana inta badan lagugu samaynaya indha sarcaadkaasoo aan lagu leeyahay eeg hebel wuxuu samaynaya eeg heblaay waxay samaynaysa ama waxyaaba adigu aad xiisay sidoo kale oo inta badan dadku lagu soo jiito social media lasoo dhigo marka haddii aad riixdid kan keliya ayaa la doonaya computerkaaga trojankan dhisan in lagu jabsado marka si aan u tijaabino trojanka ugu horeyn waxaanu aadaynaa dhanka iyo start listener ama dhegaystaha software halkan ayuu imaanayaa kanna waxaa copy lagu sameeyey oo lasoo dhigay systemka shakhsiga isticmaalaya loo diray tusaale ahaan kan ayaad soo qaaday waad qaaday waxaa loo diray qofkii desktop ayuu soo dhigtay meeshuu doona ayuu soo dhigtay uu furayaa markii uu furo isla markii si automatic sababtoo ma oga wuxuu furay iyo waxa loo soo diray ma oga isla markii wuxuu isleeyahay ma music ba hadduu u furmay waa ka tegayaa marka three options ayaa halkan yaalla waxaa ugu horeeya a keylogger sniff victims a keylogs ama uri sniff waa urinta waxa alla wixii isticmaalaha uu ku qoro computerkiisa hadduu yahay password hadduu yahay email hadduu yahay banki hadduu yahay sheeko wax walba ayuu soo qabanaya waxaa kaloo ku leeyahay screenshot take screenshot of the victim's machine ama wax alla wixii uu dhexda ka gala hadduu youtube daawanayo hadduu qof la sheekaysanayo wuxuu leeyahay waxaad iga qaadaa sawir iyo kan ugu dambeeya oo ah get console start a command oo terminalkaas wuxuu noqonayaa pwd oo ah linux ama start cmd oo ah windows marka waxa la wixii victimka ama qofka laga jabsaday computerkiisa ku jira copy ayaa lagu samayn karaa videos sababta awgeed ayaa mar walba waxaan idhahdaa video aad leedihiin ama sawiro idin qaas ah computerkiina ha ku kaydinina haddii aad ku kaydisaanna waxaad samaysaan in aad password ku xirtaan waayo password hadduu ku xiran yahay cid qabsan kartaa ma jirto haddii la doono waa la tirtiri karaa shutdown ayaa laga dhigi karaa waa la damin karaa marka intaas o dhan lama baahan waxaan ku bilaabaya number 2 ayaan ku bilaabaya kaasoo ah screenshot enter ayaan leeyahay markuu sidaan usoo baxo wuxuu leeyahay enter the time interval for screenshots imise second waxaan ka dhigayaa 5 second ayaan ka dhigayaa inta u dhaxaynaysa sababtoo ma doonayo in mar walba sawiro aad u far badan uu qaado enter ayaan leeyahay marka wuxuu doonayaa in uu sawir every 5 second uu sawir u qaado uu qaadayo ad ujeedaa waxaanu aadaynaa shabakadeena solar portal ayaan tijaab ku samaynaa tusaale ahaan solarportal.com ayaanu saanu gelaynaa oo shabakada ugu weyn investigationka wax walba lagu sameeyo solarportal.com isla markaana waxay leedahay youtube la yidhaahdo solar portal ayay leedahay waxyaabo aad u fara badan oo investigation oo kala duwan oo si professional loo qoray ayaa ku jirta aad ku arki kartaan marka sawiro ayuu qaadaya tabcan wuxuu leeyahay 6 screenshots waxaan ku laabanayaa isla meeshii folderkii banaanka ii yaalay oo haddii aan ku laabto screenshots halkan ayuu yaala waad aragtaan waxaad arkaysaa isla markii inta uu soo qabtay 5 daqiiqo ugu horeysay waad ujeedaa kan ayuu ku bilaabay intii aanu ku wadnay shaqada hadda uu soo qabtay kan uu soo qabtay intuu socday intaan sawirada kala bedelay sawirada intuu soo qabtay waa kan isaga ayaa soo qabanaya marka wuxuu soo wadaa intii kale uu soo wadayaa halkan ayuu kusoo buuxsamaya wax walba wixii lagu qoro halkana inta la qorayo intervalka marka hadduu yahay 5 daqiiqo waa kan iminka wuxuu soo qabanaya uu soo saaraya shabakada solar portal ayuu soo qabanaya iyo inta 5 daqiiqo ee la jirta waad ujeedaa intuu soo qabanayo wuu soconaya marka within 15 minutes hadda 15 screenshot ayuu soo qabtay waxaanu doonaynaa mar kale inaan ku laabno sababtoo ah 5 daqiiqo dhexdeeda ayuu ka baxay kaa intuu ku jiray marka hadda haddii aan sidaan ugu dhex jiro screenshot ayuu ka qadaya waxaan ka dhigayaa refresh ayaan ka dhigayaa markii aan ka dhigo waxaad arkaysaa mar dhow haddii aan ku laabto dhankii kale inuu soo qabanay waad ujeedaa waa kaas intii uu socday uu soo qabanayay 5 daqiiqo ayuu interval uu sameeyey waad ujeedaa wax alla wixii halkan ayuu kusoo buuxinaya waxaan kaloon gelaynaa shabakad kale ayaan gelaynaa shabakadeena solargroups.com ayaanu gelaynaa isagana waad arkaysaa password ayaa kusii xiran oo aan kusii xiraa si looga hortago in lasoo jabsado mar kale marar badan ayaa la isku dayay laakiin laguma najixin waa kan shabakadeena marka haddii aan ku laabtay isla meeshii maxaa dhacaya waad ujeedaa solar groups hore ayuu kasoo qabtay
marka haddii aan idhaahdo wax kale aan eego waxaa jira sawir halkan yaalla tusaale ahaan aniga saaxiibkay abukar mahdi qoota ayaa halkan yaalla marka in yar ayaan ku daynaya 5 daqiiqo haddii aan ku laabto isla markii baad ujeedda abukar mahdi waa la soo qabtay computerkayga ayaa laga soo dhex qabtay waad ujeeddaa waxaa kaloo halkan yaalla isna walaal Ilyas ayaa halkan yaalla Leicester City wata isagana mardhow uu soo galay waad ujeeddaa Mr Ilyas hore ayaa laga soo qabtay marka wax alla wixii halkan aad ku furtid waxaa kaloo halkan yaalla ugu dambeyn qorituurka ciyaaraha suuki ayaa halkan saan u yaalla ee isku aadka ciyaaraha ugu xiisaha badan Europe ayaa halkan yaalla isna marka haddii aan minimize yiraahdo within 5 waad ujeeddaa waa soo qabtay saan ayuu soo qabanayaa wax alla wixii ku jira marka haddii aad tiraahdid waxaan gelayaa Facebook-ayga ayaan gelayaa waxaan ku qorayaa waxaan doono wuxuu soo qabanayaa meeshii aad ku jirto haddii aad gashid pornography website wuu soo gelayaa wax alla wixii halkan lagu soo qabto qofka ayuu si toosa isagoo computerkiisa jooga ugu diraya marka aad ujeeddaa wax walba waan galo hadda Facebookii aan isku yaraday solo groups hore ayuu ka soo qabtay marka haddii aadan doonaynin inuu sii wado qabashada ay sii badato wax walba uu soo qabanayo waxaad samaynaysaa waad ku laabanaysaa screenshotka 42 maraya 41 waad ka joojinaysaa marka haddii aan ku laabto mar kale waxaan aadayaa dhankan iyo waxaan leeyahay start listen kan halkan ayuu ii yaallaa start listen haddii aan idhaahdo waxaan tegayaa dhanka halkan ayaa qofka uu furayaa marka mar walba markuu saan u furo wuxuu noqonayaa choiceka iminka waxaan leeyahay number 1 waxaan doonayaa sniff inaan ku sameeyo ama aan eego wax walba iminka wuxuu isku dayayaa inuu soo qabto waxaan ku bilaabaya tusaale ahaan haddii aan idhaahdo notepad ayaan furayaa waxaan ku qorayaa solo groups @gmail.com iyo waxaan leeyahay passwordka aan ku galo waa kan haradigeed 5 marka isla markii wuxuu soo qabtay 48 strokes isla meesha ayaan ku laabanayaa haddii aan idhaahdo minimize marka haddii aan tago dhankii keystroke haddii aan tago waxaan aadayaa keystrokes halkana laba jeer ayaan furayaa maxaad ku aragtaa sologroups@gmail.com haradigeed 5 oo sidana marka ma soo qabanaya wax kale haddii aan ku qorno waanu ku tijaabinaynaa waxaanu tegaynaa dhanka iyo Facebook ayaan tegayaa halkan ayaan hoos soo dhigayaa si aanu xaqiijino keystroke minimize ayaan leeyahay 49 ayuu ku fadhiyaa iminkan haddii kan aan riixo waxaan ku qorayaa xxss ayaan ku qorayaa wuu isbedelay marka halkan ayaad soo gashay qofka si loogu diro waxaanu aadaynaa isla meeshii keystroke ayaanu aadaynaa bal aan ka eegno kan halkan ku jiro waad ujeeddaa xxss marka haddii aan minimize yiraahdo kan aan iska xiro marka qaabkaas ayuu u soo qabtaa marka waxaan kaloon samayn karnaa haddii aan kan ka baxo ugu dambeyn waxaan riixayaa start listen ayaan riixayaa kan ayaan riixayaa marka kan hal mar ayaa loo baahan yahay kaliya sababtu waxay tahay kan waan xiray lama xiro uma baahnid inaad xirtid halka mar marka saddexda ayaan xulayaa enter ayaan leeyahay iminka computerka waxaan isticmaalaynaa pwd oo linux ah parents working director pwd ayaan leeyahay enter ayaan leeyahay wuxuu ku fadhiyaa saa ku aragtaan users solo groups update marka haysorinina waa computerkan waxaan halkan ah wuxuu noqon karaa computer Soomaaliya yaalla America yaalla meeshuu doona ha yaallo marka startup-ka ayaan joogaa marka waxaan doonayaa inaan idhaahdo cd ana linux isticmaalaynaa /backward waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay waxa ii soo baxaya sidan waxaan leeyahay ls ayaan leeyahay oo tusaya wax walba iminka waxaan dhexda kaga jiraa wax walba aan doono windows users swap file wixii aan doono ayaan ku samayn karaa waan tirtiri karaa folder ku samayn karaa restore ku samayn karaa wixii aan doono waan samayn karaa kadib waxaan leeyahay oo halkan aan ku qorayaa cd ayaan ku qorayaa users /backward waxaan leeyahay solar groups ayaan leeyahay /backward desktop marka waxaa su-aasha la isweydiinaya tahay solar groups see ku ogaatay inuu isticmaalayo yahay adoo meel kale jooga waxaad ku ogaanaysaa markaad hackinka ku samaysid waa ujeeda halkan ayuu yaallaa kadibna waxaan leeyahay enter ayaan leeyahay iminka optionka wuxuu siiyey desktopka ayuu siiyey waxaan leeyahay pwd ayaan leeyahay enter ayaan leeyahay kadibna waxaan leeyahay ls itus wax walba oo yaala desktopka markaasaa ku aragtaan bank details desktopka caadiga ah xag waa kan halkan ayuu yaallaa
waxaa kaloo kan yaala loft.exe oo kan ah, waxaa kaloo kan yaala qoto oo kan ah, suki oo kan ah ayaa yaala, iyo sawirka Elias oo ah img 2133 halkan yaala. marka wax walba oo halkan yaala adiga ayaa control ku sameynaya. Computerkan dhammaan control ayaad ku haysaa, gacanta ayaad ku haysaa, waxaad doontid ayaa ku samayn kartaa. Tusaale ahaan haddii aad doontid inaad ku samaysid anigoo isticmaalaya Windows, Notepad ayaan doonay inaan furo wax ku sameeyo. cmd waxaan leeyahay, waan ka sikanayaa, waxaan leeyahay Notepad ayaan leeyahay, enter ayaan leeyahay. isla markii waxaad aragtaa Notepadka computerka inuu ii furmo. waxaan doono ayaan ku samayn karaa. waxaan dhihi karaa more yan electronic sparo ayaan ku qori karaa. computerkii la jebiyey ayaan ku keydin karaa electronic sparo MEI, safe ayaan leeyahay. marka waxaa dhacaya, wuxuu soo dhexgelayaa, waad ujeedaa MEI kaasoo ah Morian Electronic Sparo, kaasoo aanu ka samaynay Notepadkaan ka furnay. marka haddii aan u baahdo aan idhahdo tusaale ahaan help aan idhaahdo, enter ayaan leeyahay, shutdown aan ka dhigi karaa systemkan, laakiin kama dhigi kara kan, waayo waxaan u isticmaalayaa dhanka iyo cashirka ayaan u isticmaalayaa. marka ugu dambeyn waxaan doonayaa sida preventionka ama looga hortago in computerkaaga iyo facebookkaaga lagaa jabsado, waxay tahay in antiviruskaaga, internet securitygaaga, firewallkaada uu ku jiro computerka, update uu ahaado. isla markaana tan ugu muhiimsan oo ah wax qaabkan u eg haddii aad aragtid oo exe ah, right click ayaa la sameeyaa, waxaa lagu sameeyaa scan ayaa lagu sameeyaa. aniga waxaa igu jira malware bytes oo kan ugu muhiimsana, ardaydu wuxuu ugu jira hadday member ka yihiin shabakada sologroups.com, iyo kan oo ah Kaspersky ayaa ugu muhiimsan oo ah antiviruska ugu wanaagsan. marka scan ayaa lagu sameeyaa. haddii scanka wuxuu ka soo boodo lama furo. haddii aan idhahdo property, waxaad ku arkaysaa filekan inuu yahay exe, marka file exe ah oo aan software ahayn oo qof kuu soo diray lama furo. inta badan waxaa lasoo dhexgeliyaa heesaha, waxaa lasoo dhexgeliya sawirada, waxaa lasoo dhexgeliya videoska iyo hadda lasoo dhexgeliya. waxaa lagu leeyahay gabadhan iyo wiilkan waxay samaynayaan eega, sawir baa laisku soo dhejinayaa, photoshop been abuur ah, adigu arki maysid waxa lagaa jebinayo iyo wax kale. waxaad doonaysaa in aad aragtid, waad riixaysaa, hadda isbeddel dhici maayo. tusaale ahaan eeg, hadda waxa dhacaya, waan riixaya, waxba dhici maayaan, sababtoo ah antivirusku ka dulbooday, waxba ma samaynayo. adiguna computerkaagii waa lagaa jabsaday, wixii la doonan waa lagu samayn karaa, keystrokegii, haddii la doono bangigii, haddii la doono sawiradii, videoskii, dhammaan waxaa ku jiray meeshaas ayaa lagala baxaya. marka wixii macluumaada dhankan iyo dhanka Facebook mar walba waxaad la soo xiriireysaan Solo Groups ayaa la soo xiriireysaan oo lagala soo xiriira halkan, oo aad kala soo xiriiri kartaan info@sologroups.com. anigoo ah macalin cabdinaasir, intaan wada kulmi doona waxaan idinkaga tegayaa, wassalaamu calaykum.